waxaa xarunta madasha xisbiyada qaran hadda kulan albaabadu u xiran yahay ugu socdaa guddoonka golaha shacabka iyo mas'uuliyiinta madasha xisbiyada qaran. Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta qorsheynayay in uu magacaabo ra'iisul wasaarihii bedeli lahaa Xasan Cali Khayre, balse waxaa guddoonka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ay ka codsadeen in uu dib u dhigay ilaa ay kala soo hadli doonaan madasha xisbiyada qaran, madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Mursal ayaa u sheegay madaxweyne Farmaajo in aanu difaaci karin isla markaana aanu ballan qaadi karin ansixinta ra'iisul wasaaraha uu magacaabay ilaa ay oggolaadaan madasha xisbiyada qaran. Madaxweyne Farmaajo ayaa laba magac looga soo gudbiyey magaalada Addis Ababa, kuwaasoo lagu sheegay Guuleed Carta oo hadda ka mid ah howlwadeennada IGAD iyo Maxamed Cali Nuur, xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda, horeyna u ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya. Lama oga labada mas'uul midka uu magacaabay, balse ilo wareegyo ka tirsan Villa Soomaaliya ayaa shabakadda Sirta Media u xaqiijiyey in labadaas midkood uu noqon doono ra'iisul wasaaraha la filayo in lagu dhawaaqo maalinimada berita ah. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ugu tagay xaruntooda madasha. Xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka mid ah golaha shacabka sidoo kalena ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in Mursal iyo Muudey ay madaxweynayaashu ugu tageen la tashi. Guddoonka golaha shacabka oo soo booqday guddoonka madasha xisbiyada qaran, labada dhinac ayaa iska xog wareystay xaaladaha siyaasadeed ee dalka uu ku sugan yahay. Guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay inay iskooda isku soo booqdeen guddoonka madasha oo aanay cidna erga ka ahayn, waxayna dhageysteen aragtida iyo go'aanka madasha ee ku aadan doorashooyinka 2020-2022 ayuu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo ah hoggaanka madasha xisbiyada qaran, waxayna markasta kala hadlayeen arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka. Kulankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Sabtidii la soo dhaafay gudoomiyaha golaha shacabka uu ku dhawaaqay in xildhibaanada ay kalsoonidii kala noqdeen ra'iisul wasaarihii dalka iyo xukuumaddiisa, taas oo jaha murugsan u weecisay siyaasaddii circiiraysay ee Soomaaliya. Dhanka kale, xilka xayuubintii boobsiiska ahayd ee baarlamaanka kalsoonida kala noqday ra'iisul wasaarihii xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyo madaxweyne Farmaajo isagoo adeegsanaya gudoomiye Mursal iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee Muudey si uu u helo fursad muddo kororsi ah. Madaxweynaha qorshihiisa dhowr jeer ayuu fagaarayaal ka caddeeyey inuu afar kala duwaneed qaababkii ay madaxweynayaashu ku imaanayeen. Waxaa ugu dambeysay khudbaddii uu ka jeediyey shirkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, halka oo dhammaan madaxda maamul goboleedyada, ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday iyo madaxweynaha ay isugu yimaadeen. Farmaajo waxa uu ku celceliyey in uu doonayo doorasho qof iyo cod ah, isagoo raba in meesha uu ka saaro doorasho dadban, wuxuuna hadalkiisa raacinayay waxaan u baahanahay wax aan ku faani karo, ma taagnaan kara halkii 2016. Go'aankii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb kow ee madaxda maamul goboleedyada ay yeesheen wuxuu ahaa doorashada dalka ku dhacday xilligii loogu talagalay iyadoo laga heshiinaya qaabkay u dhacayso, waxayna meesha ka saareen doorasho qof iyo cod ah. Shirkii Dhuusamareeb labo waxaa ka muuqday isfaham weyn, waxaana si weyn loogu heshiiyey arrimo xasaasi ah. Kulamo gaar ah ayay yeesheen madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada. Farmaajo waxa uu kulamo waaweyn la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, kuwaas oo khilaaf kala dhexeeyey iyagoona ka heshiiyey kala aragti duwanaanshihii dhanka siyaasadda. Ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ayaa la fahamsan yahay inuu ka dambeeyey isku imaatinka Dhuusamareeb, door aad u weyn ayuuna ka ciyaaray, isagoo kol horena sii caddeeyey doorashada wakhtigeeda inay ku dhacayso, weliba iyadoo laga heshiiyey. Waxa uuna si dadba meesha ugu saaray doorasho qof iyo cod ah iyo rabitaanka muddo kororsiga ee madaxweyne Farmaajo, maadaama hadda loo balansanaa shirka Dhuusamareeb 3 iyadoo halkii Dhuusamareeb 2 la isku raacay in doorashada wakhtigeeda lagu qabto oo haddana laga warsugayo guddiyo farsamo oo ka shaqeeya nooca doorasho ee la qaban karo, ayaa haddana lagu waayay fursada uu raadinayo madaxweyne Farmaajo. Farmaajo waxa uu heli karay muddo kororsi 1 sano ama 2 sano, wuxuuna ku heli karay sida tan. Shirka Dhuusamareeb 3 marka uu furmo waxaa halkaasi ka soo bixi karay nooc doorasho oo laga heshiiyey, waxaana halkaasi ka dhici lahaa isfaham siyaasadeed hadduu Farmaajo si cad ugu dalbaday inuu rabo muddo kordhin 2 sano, ballan qaadana inuu 2 sano kadib doorasho heshiis lagu yahay uu qabto. Sidoo kale wuxuu Farmaajo kula gorgortami karay taageerid buuxda iyo kaalmo joogto ah, isagoo ku qancinaya xilal shakhsiyaad ka tirsan uga qabtaan dowladda dhexe. Waxaa lagu heshiin karay doorasho hergelinteeda waqti badan qaadan karta, taa oo si weyn loogu horumariyay tii 2016 isla markaana aan ahayn doorasho qof iyo cod ah, maadaama ay u badan tahay in madaxda maamul goboleedyada iyo madasha xisbiyada qaran aysan aqbalaynin doorasho qof iyo cod ah. Xitaa wuxuu Farmaajo heli lahaa muddo kordhin aanu cidna kala tashan haddii uu ra'iisul wasaaraha sii joogi lahaa, maadaama dib u soo dhisidda hay'adaha dowladda waqtigooda uu sii dhacayo, isla markaana uu baarlamaanka ugu horeeyay ee qaadanaysa in muddo ah. Hadda oo ra'iisul wasaaraha daaqadda laga saaray isagoo ku dhegan doorasho heshiis lagu yahay, diidanna muddo kororsiga, waxaa bannaanka ay keentay in farta lagu wada fiiqo madaxweynaha, waxaana sidaasi ku baktiyey muddo kordhin inuu sameeyo. Sababaha aanu muddo kordhin u heli karin madaxweyne Farmaajo waxaa kow ka ah marka hore Farmaajo waxa uu iska eriyay Xasan Cali Khayre oo mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyadaba isfahmaan, mana helayo ra'iisul wasaare saameyn siyaasadeed leh. Wuxuu rabaa inuu magacoodo ra'iisul wasaaruhu u meeriyo cashirada ka oo ku imaanaya rabitaankiisa, isla markaana aan ku imaan doonin rabitaanka maamul goboleedyada iyo mucaaradka. Waxaa sidoo kale muddo kordhin uusan ku helaynin waxa uu isku diray madaxdii maamul goboleedyada, waxaana durbadiiba ka hor yimid madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani
kaasoo si kulul u cambaareeyey sida sharci darrada ahayd ee xilka looga qaaday ra'iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. oo ka digay dhaqdhaqaaqyada uu wada madaxweyne Farmaajo oo si weyn loola socdo. Waxaa banaanka yimid qorshihii muddo kororsiga in muddo uu ku taamayay, balse ma muuqato waddo u suurtagelin karta. Waxaana suurtagal ah inuu aqbalo codsiyo dhinacyo badan ka socda, taasoo ah in Mahdi Maxamed Guuleed uu shaqada sii dhammaystiro, isla markaana la aado doorasho dadban si looga fogaado ra'iisul wasaare cusub oo shaqada aan fahansaneen.
intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ilaa ay haatan ina soo gaaray wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxa si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa Sirta Media adigo weelka ruma Sirta Media